ummadda Soomaaliyeed ee walaalayaal bacda 7 sano oo aan hayay xilkii ra'iisul jamhuuriya maanta waxaan ku gudbinayaa taladii wadanka walaalkaya oo loo doortay demokratinimo loogu doortay wadanka taladiisa oo baarlamaanka uu doortay waa xaq waa caadi in ummadda wadanku ay isku bedeshaa talada oo shacabka magaciisa ayadoo taladii lagu oofsanayo ninba markiisa lagu eega shacabka oo magaciisa talada lagu oofinayo oo kaligiis daata siyaadada isaldada leh waqti walbana wixii amaraho la bixinayo magaciisa lagu bixinayo 12 saacadood ama 6 saacadood oo maghribka 30 Juun oo bisha tan aynu marayna ah yaa bilaamaysa inaan ku noqdo inaan idinku khidmeeyo kayfiye kaleento kayfiyadaasuna waxa weeye baarlamaanka wadanka inaan cudbi ka noqdo aan ku noqda waxaan aaminkana ku qabaa ragga xilka mutaystay oo talada loo dhiibay iyo ragga asagu uu soo dooran doono inay wadanka juhdigooda dhan lillaahi ay ugu wadayaan rag u soo khidmeeyay wadanka ana weeye kaalmaysan doonana khibradooda iyo waxtarkii ay wadanka ku soo tari jireen ama kaalmaysan doona talada iyo la taliska intayada wadanka maslaxadiisa ka kormarinaya wax walba waxaan idin soo jeedinayaa tahniyadeyda iyo mahadeyda ixtiraamka aad ixtiraamteen iyo aaminka aad aaminteen 7 sano aan soo dhaafnay oo xilka wadanku u isaaraa wadanku maanta xorriyada uu qaatay ilaa maanta awqaad tira badan oo dhib ah oo shida uu soo maray abidkiina waa uu ka soo baxay waqti walba dhibaatada asagoo ay u qowowday oo xoog ka yeeshay oo ku xoogoway kayfiyada demokrasiyada ah ilaahay mahadiisa ayadoo lagu mahadinayo kayfiyada annaga demokrasiyada ah ayadoo lagu mahadinayo ummadda Soomaalida ah rag iyo haweenba oo lillaahi wadankooda ugu shaqeysay ama xaalkiisa ula socotay waxaan hubaa shida walba wadanku inuu ka bixi doono oo uu ka kori doono hadaynu annaga dadkiisa ahu rag iyo haweenba aynu wadajir isu kaalmaysano oo aynu meel iska dhigno oo aynu ilowno xasadnimo xumaan soo qabid isna oo hadii la daa'imo ama caado laga dhigto dambi weyn wadanka laga galayo oo khasaaradiisa wadanka laga talinayo galad baan idinkaga hayaa walaalayaal waan idinku mahadinayaa inaad 7 sano aan soo joognay oo anigu aan madaxnimada wadanka ka ahaa adduunka aad tusteen inaad bisishihiin waxaan shaki lahayn ilaahay azza wajal inuu dhaqsiyo noo oofinayo qasadka yaga Soomaaliyay walaalayaal inta baan idinku salaamay salaantaydu ha idin gaarto ilaahay ha ximaayeeyo wadanka yaga iyo annagaba Soomaalina ha noolaato